halkan waa hoolka shirarka xarunta taliska ciidamada xoogga dalka waxaa fadhiya saraakiisha hogaanada iyo qeybaha ciidamada xoogga dalka oo uu garwadeen u yahay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage waxaa ku soo biiray maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaasheeda sareeyo Guutaliibaan Cali Yaro gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida boorka fadhigan ayaa ujeedkiisu ahaa isku xirka howlaha taliska guud iyo qeybaha ciidamada xoogga dalka waxa ugu horreynba maxkamadda ay halkan ka jeedisay dhibka lagu qabo saraakiisha qeybaha sidoo kale laga dhageystay tabashadooda xagga garsoorka ciidamada dooda u dhaxaysa saraakiisha iyo garsoorka ayaa la isku weedaarsaday caqabadaha jira saraakiisha laga saxay darajada iyo sharciga saraakiisha qaar ayaa u arka mustaxiil inuu u yeero qofka darajo hooseeya balse sharaxaad kadib waxa lagu qanciyay in sharciga uu ka sareeyo cid walba gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ayaa u sheegay saraakiisha qodobo kala duwan oo hoos imaanaya halku dhig ay doorteen sida xulashada askar iyo saraakiil teele tiradooda haba yaraatee ilaalinta agabka ciidamada hubka iyo gaadiidka iyo ka wada shaqeynta in la gaaro cadaalad oo ay ku wareejiyaan garsoorka askarigii dambi ka gala shacabka waxaan rabnaa markii mas'uuliyadda sargaalku waxa keenaya dadku inay dhahaan sargaal waxaana dhacaynin hebel oo qofkii dhacay iyo qofkii kale isku mid u yihiin oo sargaalkii magaciisa u sheegayaan waxa waaye mas'uuliyad darro ka timid sargaalka xaqiisa sababtoo ah qofkii aad adiga mas'uulka u ahayd oo dadka inuu u shaqeeyo aad mas'uuliyadiisa adiga u haysay oo adiga askarigaaga ahay haddii uu fal dambi ah geysto oo maanta aad xigtid dadku qofkii markuu dambiga saas qof shacab uga galo ama askari kale la joogo uga galo markuu sargaalku qabtaa ee uu xiraa oo geeya sharciga geeya dadku waxay dhahayaan sargaal hebelan u dacwoohayna ee sargaal hebelan dhacdhihi maayaan sareeyo Guutaliibaan Cali Yaro gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa u sheegay saraakiisha hogaanada iyo qeybaha inay u hoggaansamaan sharciga oo aysan la weynaanin darajada ay haystaan kan xer ilaalinta joogana inuu yahay dhambe ama laba xidigle inuu yahay suurtagal ah mararka qaarkood waxa laga yaabaa ninkan inuu dhibsado anoo gaashaan la sare ma dhamo warqad ii soo qori karo amar isiin karo dhamahaas oo warqadda uu qoraayo ma ahan asaga shakhsiyadiisa ma qorooyo waxa asaga hoos imaada ama sharcigii ayaa ku amray asaga kuma amrooyo marka waxaan ka codsanaynaa ama waxaan faraynaa aan leenahay qeybaha xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka kooban yahay mar walba inay u hoggaansamaan awaamirta ay ka soo baxdo xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida sababtoo ah sarkaalkan joogo xeer ilaalinta aduu ku matala wuxuu ku fadhiyaa sharcigu ku fadhiyaa haddaad adi dib lagu geysto ama haddaad adi dib aad geysato ama haddii adi lagu dulmiyo soo uu u qabto qofka ku dulmi kaaga qabto General Odawa Yuusuf Raage abaanduulaha ciidamada xoogga dalka oo fadhigan hormuud u ahaa ayaa tilmaamay in xilligan muhiim u yahay dalka sharciga oo aan la fiirin marxaladda adag ee muddo loo tanaasulayo waqtigaan ku jirno waa ogna laakiin meeshii uu naga hagi lahaa waqtigu waxaan rabnaa waqtigu inuusan naga hagin sharcigu naga hago haddii laakiin aan dhahno waqti adag aan ku jirnaa aan saan u jaleecino meel xun aan ku jirnaa aan saan yeelno waxa ka imaanaysa cadaalad darra ka dhalanaysa marka waxaan aad u jeclaa lahaa runtii 100% inuu sharcigu nahago oo waqtigu uusan nahagin waqtigu waqtigiisa ahaado laakiin mar haddii sharcigu nahago waqtiga anagu waa isku soo dhacayna meeshaasaan iskala jaan qaadayna aad iyo aad u mahadsantihiin saraakiisha halkan jooga ayaa looga jawaabay cabashada iyo su'aalaha ay u qabaan maxkamadda waxa ay sidoo kale ku ammaaneen garsoorka ciidamada kaalinta uu kaga jiro dalka difaaciisa iyo sida ay u marsiiyaan mudankooda sharciga ah kooxaha argagixisada qaabka ay cadowga shabaab horta maxkamadda la dhaqantaa aad baan raalli ogaa gacan bir ah ay kula dhaqantaa maxkamadda waxa ahsaan oo ma sameeyay cadowga shabaab taas aad baan muxuu ahaa يعني حقيقة وصول دوينية عبد القادر عيسى وربعين تقرنك مقالة مقدشو